Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu wasalaamantiin asxaabta meel kastay joogtaan iyo si walbaa muuqaalka u daawanaysa waxaa kusoo dhawaataan cashirkeenii labaad ee ku saabsan technology-keenii la magac baxay computer accounting oo aynu ku baranaynay software-kii la magac baxay P3 insha Allah cashirkan waxaan arki doonaa cashirkeenii labaad marka hore waxaan rabnaa inaan cashirkeen ku saabsanaado creating new company sidee baa loo abuuray company cusub taas macnaheedu ma ahan inaad kambin aana jirin aada suuqa ku sameynayno oo kambin shaqeynaya ka dhigin balse waxay tahay kambani shaqeynayo inaan ku dhex dhisno gudaha P3 yacni kambani aan hore u isticmaali jirin P3 ama ku cusub P3 sidee aan kambani naftirkiisa magaciisa iyo daatiisa dhan aan gelin lahayn P3 marka cashirkan intaas ay ku saabsan ay ku soo dhawaada marka hore waxaan soo kacsanaynaa P3 okay P3 sida ay usoo kaxaya wuxuu kuu soo saarayaa laba option midkood wuxuu yahay open existing company hore kugu samaystaa inaad furato oo dhexdiisa ka samaysto transactionada iyo weliba create new company cusub inaad samayso software-ka P3 wuxuu kuu ogolaanayaa wax ka badan hal company inaad ugu shaqeyso hal computer taas macnaheedu maxay tahay adigoo u shaqeynayo shirkad hal computer ayaa waxaa sameyn kartaa ama awood aad u leedahay company kale inaad ku samayso isla halka computer marka taasna waxay tahay faa'iido oo uu leeyahay P3 marka waxaan rabnaa inaan sameyno company cusub waxaan leenahay create new company qaybta hoose aan ku fariinaa kadib wuxuu kuu soo saarayaa shaxda waxaa lagaaga baahan yahay markii aad company cusub aad sameynaysid shanta arrin ayaa lagaaga baahan yahay kow company name and address companygaaga magaciisa iyo weliba addresskiisa meesha uu ku yaalo kow waxaa kaloo lagaa baahan yahay business type ganacsiga noocuu yahay ganacsi hal qof leeyahay sole proprietorship partnership wax laba qof iyo wax ka badan miya corporation miya oo maamulayaasha iyo ownerska way kala madax bannaan yihiin ganacsigaaga nooca uu yahay ayaa lagaaga baahan yahay kan saddexaad wuxuu lagaaga baahan yahay accounting method companygaaga company oo cash markuu soo galo aqoonsado miya oo expense markuu baxsho aqoonsado يعني محاوى كمبني ودين بحيمية دين سوقاته بس كمبني محاوى كاش مركو هيلو أيو قرطاء إكسبنسية مركي وبحه عيال القرآن بس محاوى أكروا المياه بس كاش بيسو وأنا تقرني سينا رجينيا هذا قصو قبل سيفو دحاوى كمبني كان دين مبحيا دين مخاطة أوكي كان قالوا أفراد لغاية بايو حيتها كونتين بيرود ganacsiga xitaa qaybgiisa goormees la sameeyaa maalinlaha la sameeyaa isbuuc lu waa bil waa masanaad leh mas 6 bilood leh bilamiya adiga laga rabaa inaad isiklet waxa laga baahan yahay physical bisha uu ganacsiga uu bilaabmay bisha koowaad uu bilaabmay bisha labaad bisha saddexaad bisha uu bilaabmay ganacsiga okay waxaan leenahay next marka next aadano waxaan gelinaynaa company-geena magaciisa gelinaynaa waxa kaliya laga baahan yahay waxay tahay inta saaran tahay xididta oo guduudka ayaa laga baahan yahay required field ayaa laga baahan yahay meelaha kale oo muhiim ah waa ka tagi kartaa laakiin haddii aad buuxiso way sii fiicantaa tusaale ahaan magaca company-geena waxaan leenahay tusaale ahaan maalis iskale addresskaaga iyo waxaan dhan waad geli kartaa zip telephone fax idea tan kaloo laga baahan yahay waxay tahay business type labadaas fili ayaa meesha laga baahan yahay business type maxaa sole proprietorship iyo corporation iyo partnership tusaale ahaan waxaan iska dhiganaa partnership oo kale todo kadib waxaan leenahay next okay wuxuu noo soo saarayaa afar qaab ganacsigaaga ganacsi oo sambal ee ma rabtaa inuu company oo sambal ah oo diyaarsan oo akoonadiisa wixii dhan wataan miyaa rabtaa inaad isticmaasho mise waxaa rabtaa copy set from existing P3 accounting company mise waxaa rabtaa company kaleetood oo P3 ku dhisan oo tusaale ahaan akoonadiisa dhan lagaaga soo koobiyey ma rabtaa company kaleetood tusaale ahaan waxaa waa adigoo meel electronic P3 uu shaqeynaysid ayaa waxaa la soo heshiisay kuwa kaleetood electronic marka inta akoonada dhan aad abuuraysid dib ayay kugu noqonaysaa waxaa sameynaysaa company kaleetood hore uu shaqeyn jirtay akoonadiisa dhan soo koobiyeysaa saasna waa sameyn kartaa kan saddexaad waxay tahay convert company for another accounting program waxaa rabtaa ganacsigaaga wuxuu ku shaqeyn jiray QuickBooks Easy barnaamijyadas kale oo ku shaqeyn jiray asaga waxaa rabtaa inaad usoo guurto P3 iyo weliba mid ugu hooseyso waxaa build your own chart of accounts inaa adiga aad samaysto waxaa oo dhan kan waxaa u baahan yahay qof waaweynka u baahan yahay marka anaga waxaa iska leenahay usambal wuxuu kuu soo saarayaa noocyo fara badan oo ganacsi ah marka midka aad rabto ayaa ka xulinaysaa midka uu shirkadaada company-gaaga oo khuseys ayaa ka xukunaysaa
tusaale ahaan anaga waxaan dooranaynaa advertising agency. Next alena wuxuu noo soo saarayaa accounting method. anaga diin ma bixinaa oo diin ma qaadanaa mise waxaana qaadanaa cash iyo gado waa kaa gatay markaas ma aqoonsanaysaa mise yani diin iyo waa bixinaysaa diinna waa lagu yeelan karaa. waxaan leenahay accrual laba dhig. okay wuxuu leeyahay juice posting method. nuucay rabtaa inaad u post garayso markaa computer gelinaysa waxaa rabtaa hal mar real time isla transaction walbaa gelinayso in hore u baana sheedku wax dhan uu isbedelo maaragtaa mise waxaa rabtaa bajna waxay tahay iyadana hal maraa la aruurinaa kadib hal maraa posting loogu sameynaa. waxaan leenahay real time maa leenahay. okay waxaan noo soo saaray juice accounting bureau structure. shirkadaha badankooda waxay sameeyaan accountingkooda xisaab xirkooda waxay sameeyaan 12 bilood. haddii aad rabto inaad 6 bilood ka dhigto waa ka dhigi kartaa laakiin anaga waxaa ka dhiginaa 12 bilood. wuxuu ku leeyahay use first period of your physical year. waxaad doortaa bishii kugu horeyso oo physical year-ka bilownayo. anaga tusaale ahaan waxaan leenahay January 2020 aan bilaawnayna. wuxuu ku leeyahay you are ready to create your company. kadib waxaan leenahay finish. company ayuu ku abuurayaa wixiisa dhan si uu ku diyaarsan waa uuna kuu soo keenaya. bal aragno sida uu soo keenaya. okay hadeertaan wuu noo soo kici company-gan. halkan waxaan kugu sheegayaa waxa ku cusub B3 waxaasna u baahan anaga cancel ayaan iska leenahay. okay waxaan rajeynayaa inaad wax ka fahantiin sida loo sameeyo company adigoo isticmaalaya B3. insha allah waxaan rajeynayaa inaad isku dayi doonto kadib aad sameyn doonto insha allah. waa cabdibaad xasan horooyin lacalo dhaxal reebi kara ha noqon inta aad la timid. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.